wasaaradda arrimaha dibadda dalka Kenya ayaa sheegtay inay aqoonsan tahay madax-bannaanida iyo jiritaanka Soomaaliya sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dalkaas Kenya. waxay sidoo kale sheegtay inay ka qoomameynayso calanka Somaliland ee sida qaldan uga soo muuqday shirkii diblomaasiyadda ee ka dhacay Kenya. wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay inay ka xun tahay dhibaatada ka dhalatay arrintaas. hadalka ka soo baxay dowladda Kenya ayaa waxa uu imaanaya xilli shalay safiirka Soomaaliya ee Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan uu isaga baxay shir ay madaxtooyada Kenya isugu yeertay safiirada fadhigoodu yahay dalka Kenya kadib markii uu kulankaas ku arkay mas'uuliyiin matalaysay jamhuuriyadda iskeed isugu dhawaaqday madax-bannaanida ee Somaliland sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan safaaradda Soomaaliya. Kenyatta ayaa shalay la yeeshay diblomaasiyiinta kulankiisii ugu dambeeyay ka hor doorashada dalka Kenya ka dhacaysa ee bisha Agoosto ee sanadkan. war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda goonida iskeed isku taagtay ee ku dhawaaqday Somaliland ayaa waxa ay ku sheegtay inay ka carootay ficilada uu sameeyay danjiraha Soomaaliya u fadhiya Kenya Ambassador Maxamuud Axmed Nuur Tarsan kaas oo isaga baxay shir uu madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta isugu yeeray kadib markii uu kulankaas ku arkay mas'uuliyiin matalaysay jamhuuriyadda iskeed isugu dhawaaqday ee madax-bannaanida Somaliland. war ka soo baxay safaaradda Soomaaliya ee Kenya ayaa lagu sheegay in dowladda Kenya ay si kala kac ah u marti qaaday qof ka socday Somaliland oo qoraal ka soo baxay safaaradda ku tilmaamay gobol ka tirsan Soomaaliya.